waxaan u yeeri doonaa Ustaad Maxamed Cabdi Wahaab oo kamid ah bulshada rayidka. Fadlan ku soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الآن في شغل ضبع الودة دين هي شركة حياة ديننا صدح هذا لو قاليا يا الله هذا ومدبمت كم معايا هذا الكعورات بابا سولي ما يبها أنت كدم بيسي ومسكا ومفاهيم بهاي وحكوا في عناي إن أنت أنا النافين وخلي أيام الله وبنتنا الوجرة marka waxa kale oo inala hadlaya oo inuu salaamo rabo ninkii mubarak ahaa garabka sixitaanka xaaladdeena ku dheeraanay oo jirta oo runa xaaladaas marka waxay ahayd garab baa kacay oo isla xisbiga dhexdiisa inta badan Ethiopia banaanka looga yimaado mucaaradku way neceb tahay marka xisbiga talada haya dhexdiisa ayaa isku dhex qarxay oo intiisii badnay dadka inteedii badnay markay xumaantii wada arkeen dee dadkii way dadku inagu bayna lamid yihiin oo dee dareenkan qabnoon bay qabaan oo dad aqoon raggan hadda meesha ka hadlayo bay la wada mid yihiin marka inaan raggii hadlaya waxaan jeclaan lahaa inay taageero u muujiyaan nimankaas kacay walow ayayna isku xisbi noqonin laakiin hadda xaalad baaba ina wada kulmisayba dhammaan oo ah inaan mataqaanaa deegaanka gacanteena uga jiro deegaanka goor baa laga maamulay iyo goojaam iyo baxradaar baa laga maamulay marka deegaanka goorteena gacanteena ku soo noqday kadib bay marina hebel xaq liga sakiyo in hebel qandaraas si iyo taayado inoo hadar la isku qasban laakiin hadalkaygu ma badinayo maadaama yaan aan xadka ka bixin laba eray un baa ku soo koobaya oo aad gaagaaban marka warqad garab geeleeg baan soo qortay laakiin ragga wada aftaansan baa iga horreeyay marka waxaa weeye hadalkii hadda waa dhammaad anigu erayadayda waxaan kusoo koobayaa kacdoonkii isbedelkii maxaan filaynay maxaynaan filayn maxaa isbedelkii dhacay 2018 maxaan ka filaynay iyo maxaynaan ka filayn waxaan filaynay oo aan ka filaynay isbedelkaas inuu la yimaado maadaama oo deegaankeenu uu ku soo jiray xaalado aad u adag waxaan filaynay dadka shacabka ee dulmanayaasha ahaa xaaladaha adag ee inkaasta qaba soo maray nidaam iyo system u shaqeeya oo boogihii dhaya oo bulshadii isku soo dhaweeyay ayaan filaynay nasiib daro waxaa yimid oo lama filaan noqotay nidaam aan dadkiisa danaynaynin oo baxradaar iyo axmaaro la haysta inuu yimid systemkaas waa nasiib daro waxaan filaynay jidkii soddonka sano qaldamaa sidii nimankii igu horeeya sheegeen ilaanay wixii systemkii hore jiray security perspective kaliya wax laga fiirinayay dhinaca ammaanka oo ah kan dil kan xidh kan qabo laakiin lagama fiirinaynin dhinaca mataqaanaa horumarka waxqabashada waxaa dadka caafimaad ha noqoto jidad ha noqoto adeega bulshada ha noqoto dhinacaas ma ahayn xukuumadaha jiraay dhinaca kama fikirayn waxay ka fikri jireen oo dhaaraan u ahaa deegaankeenaasi Etoobiyada sare oo weligii dhaaraan marka saasay yaa jirtay waxaan filaynay ururkii nabadda keenay ee ONLF in la sharfo la soo dhaweeyo boogihiisa la dhayo talada dalka masiirka laga qaybgeliyo xukunka ay wax ku yeeshaan talada dalka wax ku yeeshaan maanaan filaynin in la kala qaybiyo la kala furfuro la kala diro waxaan filaynay dadkii la laayay la xasuuqay dhibaatadan maanta aan la soo koobi karin loo geystay in la xaq sooro sidoo uu yarkii maxamed ah sheegay kiisaska in la baaro case by case in la dokumenti gareeyo
maxkamad cadaaliya la furo oo laga daba tago. waxay inagu tahay ceeb weyn oo ninka talada joogay ka dambeeya kiisaskaasi dad baa moodaya. waxaa jira anugu markayga hore inkastoo carabi kusoo bartay waa isku mid lawyer soo bartay. waxaa jira wax la yidhaahdo qadiyada duugooba iyo qadiyada aan duugoobin, yacni xaalad duugooda iyo xaalad aan duugoobin. haddii ninku $100 xado dhowr markay joogto mataqaanaa intaasoo muddo ay kasoo wareegto kaba soo qaad ay kasoo wareegto bil, xaaladaasi way duugowday, ninkaasi wuu dambi baxayaa. laakiin xaalado aan duugoobin baa jira. waxaa la yidhaahdaa xaaladda dilka oo kale, dembiyada jaraa'imta waaweyn ma duugoobaan, weligeed way taagnaanaysaa. marka ruux cadaalad yaqaano markay istimaadoon baa la filay. marka dadkii dhibkaasi soo gaadhay inay mataqaanaa la xaq soore ahayd, waxay ahayd oy mudnayd oo filaynay mujrimiintii dadka laayay in maxkamad la keeno. maanaan filaynin in la daac la siiyo oo darajo la siiyo. waxaan filaynay musuq maasuqa in lala dagaalamo. maanaan filaynin kiish weyn in loo tasho. waxaan filaynay qabyaaladda iyo jifoosiga hoose in lala dagaalamo. maanaan filaynin in la abuuro fidno. aayadda qur-aankeeda maxay tidhi walfidnatu ashaddu min alqatl, yacni dilka ayaa fidnada oo dadka oo laysku dhufto oo laysku laayo ayaaba kasii xunba nafta xakooda wey. waxaan filaynay khayraadka dalkeenna oo batroolku kow ka yahay maamulkiisa inagu inaan lahaano, masiirkiisa inaan inagu lahaano. ma aynaan filaynin wiil goondhar ka yimid inuu ku hodmo oo yidhaa mataqaana oo shilaabe iyo uu maanta ragga jooga maamulkeena xitaa ma oga. shirkadaha degan Etoobiyaanka ma la ogyahay cidda maamusha kama warqabno. waxaan filaynay baahida asaasiga ah ee dadkeenna in laga dhigo available, hadday noqoto biyo, hadday noqoto cunto, hadday noqoto waxbarasho, hadday noqoto caafimaad. maanaan filaynin abaar iyo haraad iyo gaajo maanaan filayn. qodobkayga u dambeeya maynaan filaynin, waxaan filaynay dad miisaan leh miisaska Etoobiya wax ku qaybsanayso inay noo tagaan oo inoo qayb galaan oo waxa inagu waxayna taan urursanno oo inoo gacanta aan ku dhigno miiska Etoobiya wax ku qaybsanna dad miisaan leh inaan geysano. maynaan filaynin baroortii maxamuud dirir. miyaan filaynay hibil iska baroor nin weynoo iska cabaaday oo deegaanka ugu ballaaran ee Soomaali Etoobiya ugu ballaaran ee ugu khayraad badan matala ya inuu doqoho 80 jir 60 jir inuu qaylo oo iska qabsado iska baroorto. ma filaynin waxayna qabtaa ma ninkaas miisaan inoo geli karo wax inoo qayb dad inoo kala day. maadaama ay saa tahay systemka markaa fashilmay ku fashilmay inuu inta aan soo sheegay ku fashilmay iyo in ka badan inta khiyaartii wadaas ay sheegayeen rag dhalinyarada mutacalimiinta ay sheegayeen systemka noocaas ee fashilmay inuu sii jira soo xaraan. waa inaan isu taagno inagoon urur aan eegaynin, inagoon meel kale eegaynin, inagoo waa hebel aan eegaynin, inaan united national unity inaan samayno oon united noqono. waa inaynu systemka sida ugu dhaqsaha badan intuuna godmadow uunan isugu keen ridin aan isdhaafino. taladu intaas ku hegta. waa mahadsantihiin. anuu hadalkayga intaasaan kusoo taabaya. waxaana isku dayaa inaan mar labaad waxaan emphasize garanayaa in dhalinyarta kacday dhalinyarta garabka sixitaanka ee DB waa wiilasheenii, waa dhalinyarteenii, hiil iyo hoobay nooga baahan yihiin. waana nimanka maanta aan systemkan qalafsan ee kooxdan anuu raggan Mustafana waan la shaqeeyay oo hadda Mustafa safar baa wada galay waad ogtahay. waxaan ka tagnay Jigjigaan ka tagnay, waxaan tagnay Dhagax Buur baan tagnay, waxaan tagnay Gunagadaan tagnay, habeenkii awaaraan seexanay waad ogtahay. waan ka soo gudubnay Jigjigaan, hadda waxaan ku soo noqonay Dhagax Buur, waxaan tagnay Dhagax Madow, waxaan tagnay jidkii dheeraa baan maray, waxaan barinay degmadii ku taalay Qahri Joqodeysha magacada maxay ahayd dhuxun baan habeenkii seexanay waad ogtahay. waan ka soo baxnay habeenkii la fiiq baynu seexanay. ciyaartii finalka lagu qaban jiray 2006 ugu dambeysay Faransiiska Talyaanigu ay waad ogtahay
markii ugu dambeysay inaad laba kursi hoosaan waxaynu ka shaqeynayna waxay ahayd wax la yidhaahdo early warning program inuu hawada ogtahay oo aynu ka hortagayna abaaraha system wuxuu ahaa la sameeyo abaarta markuu roobku do-o ayaa hay-adaha baxayay waxaa lasoo qiimeynayay roobkaasi aahaartu ka tegay waa biraha sideenay dhulkaan gelinaynay inta uu yahay dhiib uu mataqaanaa biyahaasi arooreen baan yaan waxaynaynay waxaan soo fiirinay daaqa baxay intuu qiimeysu yahay mudhaha baxay dadkaan soo qiimeynay markaa wixii la kalkulaad gareeyo waxaa la leeyahay sanadka soo socda 3 roob la-aanta bilood noocaasi wakaan doonaan early warning program markaasaa laga diyaar garoobay mustafa programkaasaad ka shaqaysay marka ceeb calayka shame on you inaad hadda adiga oo programka ka shaqeeyay dadkaaga oo gaajisay maanta inaad tiraahdo waxba ma qabaan waxaa weeye shame on you wallahi mustafa saas wey insha allah dhalinyartii oo garabka bbdana waa noo soo xidhaynaa waa maasante